السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. channel ka daawanaysid waa Manaal Production. qofka aad fiirsanaysiin waa Manaal Doley. Please haddii aad channelkayga aad ku cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe kii samaysid aadna comment kii like tan adiga baqiilin marobana aad support garaysid. waxaan ahay walaasha maanta waxaan idin wadaa sheeko. hooyaday ayaa iga xogtay ilmahaygii iyo ninkaygii. waa sheeko aad cajiib u ah. gabar waxay ku dhacday Mareykan ah iyadoo yana ka sheekeynaysa maanta bal qaybta ugu horeysa aan dhageysano. Every time on how my mother took my husband and my kids from me. I was 21, my husband at the time was 24, and my mother was 41. Him and I started dating when I was 15 years old. He was very well known by the family as he was also my brother's best friend, and my mother watched him grow up since he was about 14 years old. Before we started dating, he would make comments about how hot he thought my mom was. But to be fair, everyone, even my own male friends, would tell me how hot they thought my mom was as well. So, I didn't think anything of it. Fast forward to when I was 21, we were married, we had 2 children at the time. They were aged 3 and 2. I was pregnant with my 3rd child, and at 20 weeks gestation, my water started leaking, so I had to be hospitalized on bed rest. Because he was in the military, we were in a state that we had no support. My only family support was in Florida, so at that time I called my mom up to come and help me take care of my younger 2 children, as I wasn't going to be able to be home to do so. One of my first signs was when he stopped coming to the hospital to visit me. He would come up with all of these excuses as to why, he couldn't or didn't want to. hooyaday ayaa iga xogtay ilmahaygii iyo ninkaygii. waa sheeko aad iyo aad cajiib u ah. maskaxda bini'aadankan aan aad u qaadan karin musnay gaalaba diin u goon jirto hooyo ninkeeda hooyo gabadheeda inay ninkeeda damacdo. waxay tiri waxaan jiray daadi 15 markaan isbaranay wiilkaan iskoolayn ahaan jirnay. waan weynaanay 21 sano markaan jiray ayaan isbursanay. waxaan u dhalay 2 caruura, mid 3 jir iyo mid 2 jir ah. mid kalena uur ayaan u leeyahay. hooyadayna waxay jirtaa 41, ninkaygana wuxuu jiraa 24. waxaan u dhalay 2 caruur ah, uurna waan u leeyahay. kadib waxaa dhacday uurkaygii 3aad markaan lahaa inay ilmihii igu xumaadaan ay ibiyihii anoo bilo dhamaysan iga dilaacaan. sidaasnaan isbitaalku badanaa markii hore hooyaday waxay ahayd naag aad u qurux badan. dadkana waxay dhihi jireen hooyada aad ay u qurux badan tahay, hooyada hot waa hooyada way shidan tahay. laakiin aniga wax saas dan kama geli jirin dadkaada madooba. kadibna waxaa dhacday isbitaal inaan galo oo hooyaday uga yeerto magaaladeeda aan iraado hooyo isbitaalka intaan ku jiro caruurta ii hay maadaama aan caruurta ka maqanahay. maamadii sidii ayay guriga ku timid ayay tiri. kadibna ninkaygii ayay xiriir hoosaad ah wada bilaabeen. kadibna waxaan ku arkay ninkayga isbedel inta isbitaalka ku jiray, inuusan igu soo booqan, inuusan ii imaan, inuusan soo wicin. aniga dhan waxaan kadib aniga isbitaalka waan ka soo baxay. guriga markaa imid waxaa la kulmay dabeecado different ah inay ninkaygii iyo hooyada ay isku dhadhawaanayaan. timaha u masaajeynayso, korka isku masaajeynayo, la istaataabanaayo. aniga markii dambe waa xanaaqitay, aad ayaanan u xumaaday. hooyada waxaan haddana isiragtay hooyada kama suuroobaysa inay ninkaaga kaa shuqaansato ama waxaas dhacan, waxaas maskaxdaada iyo waxaa iska dhaadhacsiisay. kadibna hooyo waa la hadlay. waxaan ku iri hooyo ninkayga maxiriir ayaa la leedahay. may ay igu tiri inta iga fidisay bedaan ii sheegtay. ay igu tiri wax xiriira nagama dhexeeyo, adiga sidii saas loo joogo. waxay tiri ayaantii dambe ninkayga aad ayay isku bedelay. hooyadayna waxaa qabatay ninkii 3aad oo aabbahay markay kala tagay nin kale guursatay, nin kale haddana guursatay. ninkaas 3aad ayay la nooshahay. hooyaday way laabatay tiri xaafadeeday u noqotay. ninkaygiis wuxuu sameeyey isbedel aad u weyn. midda kalena wuxuu samaystay tiri taleefon aniga aanay kala qabin ayay soo furtay. sidaas ayuu hooyaday kula xidhiidhi jiray, iskula hadli jireen. kadib hooyaday waxay tiri ninkii ay isqabeen ayay iska soo furtay. asagana anigii uu iga tegay tiri meel ayay isla waxay tiraahday dhaka ayay ii fikirtay. waxay samaysay inay i dacweyso, isagii ayadaba ay i dacweeyaan, ay anigu dacweeyaan. maskaxdaa looga jiraa, qof fiyow ma aha. ilmahana ma haysto, kumana filmo maadaama anigana aan jirin, naasaqana aana haysan. waxaa ilmaha ku koriyeen keligay aana haysan. waxay igu soo eedeeyeen inaan ilmahaasna aan hayn karin, maskaxdeydana isku dhex yaacsan tahay. dacwo ayaan furtay tiri. dacwadii markaan furtay waa la igu inkiray tiraahday inay wax ka dhexeeyaan xiriir ah. maxkamadiina waxay go'aamisay in ilmihii layga qaado. anigana waxaan u sheegay tiri hooyada inay ninkan xiriir kala dhexeeyaan, laakiin layma aaminana tiri. kadib waxaa dhacday tiri inay isla guuraan, meel gooni degaan, aniga iyo saas banaanka ii dhigaan, ilmihiina ay iga qaataan.
saas ay tahayna way qarin jireen tiri markii hore xiriirkooda laakiin markii dambe markii ayaan la joogay waxay go'aansadeen xiriirkooda inay soo bandhigaan ee engagement sameeyaan midda kale hooyadayna uur ayay yeelatay tiri xataa waan arkay tiri uurka bahlada lagu baaro oo positive uudo yaala aadayna ugu faraxsaneed aniga waan ka dhaxay tiri isla markiina hooyada ilmihii waa ka dhicisoobeen way kheer ayaan ii ahayd inay ilmahaas ka dhicisoobaan waa waxay noqon lahaa ilmo ayaga dhanba qataasa miirana marna walaalihii ah marna ilmahayga la dhasheen marna ilmahayga abti u ah adeer u ah marna ilmahayga la walaal ah aad iyo aadaan ugu fikiray tiri waa isku dhex yaacay tiri waa isku fikiray aniga dhan waa isku dhex buuqay trauma igu dhacday aniga dhan waa xanuunsaday waxay tiri adiga markii laga joogay sanado kadib way soo caddaatay xiriirkoodii sanad kadib maxkamadda la fulay waana u sheegay waana la ogaaday waxaana lagu xukumay in isagana maadaama uu military ahaa kumaandigiisana lagu dacweynaayo ilmaha ninka naagtaan iyo asagana aysan wada degi karin waddo ay ku wada degi karaan aysan joogin maxkamaddii ayaa kala burisay maxkamaddii markay kala burisay waa la joogayna waxaa waaye ninkayga hooyadii way brainwash u samaysay maskaxda dhan ay ka qabsatay iyadaa waxabo u samaysay sidaas la ajligeed ninkayga xiskiisii u soo noqday caadiyuu iska dhigay wuuna ii soo laabtay wuuna i raaligareeyey ninkaygiina waa ii soo laabtay hooyadeyna ilmihii waa ka soo halaabeen wallaahi waa sheeko cajiiba tataa intaas inta ka badan intaan kuda kulmi doono sheeko bagalo xiiso leh subscribe-kii taata aad ayaan u jeclahay inaan idinla soo wadaago sheekooyinka iga yaabiya mahadsanidin